بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة حلقة عنوان كيدو وحوية odayaasha beesha hawiye. Alxaqiiqa shalay waxaan dhegaystay odayaal aan ka gartay raggii wakhtigii farmaajo geela guddoomayey ee lahaa farmaajow soo baxa. kolkaan dhegaystay hadalkoodiina waxay durayeen shirka kismaayo. warnimo yahow mushkiladda jirtaa waxa weeye oo Soomaali dilootay odayaasha beesha dhaqanka ee hawiye iyo madax dhaqameedka isaaq. waxaan ku hormarayaa odayaasha hawiye, siyaasiyiin maaha. afartii sannadoodba iyagaa dawladna rida, dawladna taageera. meel ay iska soo galaan oday dhaqan iyo siyaasadna anigu garan maayo. nimankaa odayaasha hawiye meesha ay ku socdaan baa aniga ii muuqata. waa xamaroo looga tago. mar waxay ku odhanayaan cashuurtayadii baa la cunaa. war xaggaannu ku cunnaa? mar waxay odhanayaan dawladda xasan shiikh baa loo dan leeyahoo la ridaya. hadda waa qabyaalad. mar waxay leeyihiin farmaajow soo bax. aasaaskii loo sameeyey madax dhaqameed ee bulshada xadkii intay ka tallaabeen ayay masaalix iyagu ay leeyihiin ka shaqaynayaan. war ay u hayaan shaqadoodiina ma jirto. shaqo aanay lahayn bay ku jiraan. odayaasha hawiye maanta waan u jawaabayaayoo waxaan leeyahay war muqdisho waa cidla. idinka iyo cali daacuun baa jooga. cali daacuunna go'baa ka yaalla. mar horuu shaddadihiisii ka rartay kolkuu dhaqankiinna arkay, kolkuu hadalkiinna dhegaystay, kolkuu qaabka aad u dhaqmaysaan aad uga bogtay. waxaan idin leeyahay xamarna ha burburinina. madaxweyne halkaa fadhiya na wax tari maysaan. xamar unbaad waxyeelladeedii ka shaqaynaysaanin si dadban idinku aan war u hayn. war farriintaa odayaasha hawiye iga gaadhsiiya. alxaqiiqa warbaahinta waan dhegaystaa. somalilan waxay qaati ka taagan tahay nin yidhi madax dhaqameed baan ahay oo ku milmay siyaasaddii. madaxweynahan hadda jooga maxamed cabdilaahi ciro siyaasiba isma hayaan. niman madax dhaqameed ah oo yidhi salaadiin baanuna, oo yidhi ugaasiyaanuna, oo yidhi keeraannu nahay unbaa idaacadda taagan.
war odayahow isaaq madax dhaqameed haddaad tahay shaqadaadii garo ninka siyaasiga ah ee dhabarka ku soo taabanaya wixii aad samaysateen uunbuu ku leeyahay burburi adna ma garanaysid ciro waa sannad buu jiraa 6 bilood kolkuu jiray madax dhaqameed baa ku bilaabay dhaqan fool xun oo aanan waagii hore isaaqa ku aqoon baa hadda iiga muuqda tollaayey yaa reer hebeley annagoo reer hebela war waxaas wixii aad qaaxa kala timaadeen waa dhammaadeene haddaad dawladnimo raadinayseen war nimayow madax dhaqameedka sheeganaya dhaqankiinnii ku ekaada qodobkaana madax dhaqameedka isaaq baan leeyahay talaan isaaq u soo jeedinayaa talo war markaad etoobiya ka timaadeenna berbera waanigii joogay intii ina cigaal joogayna waan idinla joogay 8 sane ee ina khiyaaren waan ka maqnaa dalka siilaayo markuu qabsadayna waan soo noqday intii muuse biixi joogayna waan ka maqnaa dalka intii uu cabdiraxmaan cirra qabsadayna mar baan imi 8 ilmo sheekhi saxaaqoo waxaan idin leeyahay war shira cudurkii qaaxaa idinku dhex jira shira oo ummad shirtay wanaag baa ka soo baxa isbeer xaadha waa iga talo khaldaad fara badan baa isaaqow iiga kiin muuqda oo gudihiinna ah colaad sokeeyaa iiga kiin muuqata oo gudihiinna ah dad aan israbin baad u eg tihiin wadad haddaad muslim tihiin oo ilaahay taqaaniin nin khayr qaba allaha idinka soo saaro shir idinku baaqa oo aad bal shirkaa isku warsataan oo wax isugu sheegtaan oo wax isku ogaataan laakiin sida hadda aad tihiin siba maaha maamul kasta iyo dawlad kastoo idinka soo dhex baxda madax dhaqameed baa idaacadda u taagan nimankan tiktoka u taagan nimanka facebooka ka hadlaa u taagan warti sida tani si maaha waan idinla yaabanahaye niman yahow shira wabal qodobkaana isaaq iga gaadhsiiya alxaqiiqa kismaayo waxaa ka soo baxa waa dhawraynaa qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa xasan sheekh iyo baabuurtan cagaaranee uu wato iyo gebagebadana waa eegaynaa qodobkaana intaasaan ku dhaafayaa aan gebagebeeyo soomaaliya bildhi bulog baa idinku socda
dembi 1884 baa laynaga galay oo isticmaar baa inaga galay oo 5 Soomaaliyeed buu inaga dhigay inagoo mid ah maanta 6 Soomaaliyeed iyo muuji 5 Soomaaliyeed waxaynu nahay oo maamul goboleed maalinta mustacmar baa sidaa inoo galay maanta tiibaynu raacno inaga ayaa kala googo'nay waa dembi aad u fool xun taariikhdana ku suntan cid jawaab u helaysaa ma jirto waa building block waxbaad cunaysaan waad guursanaysaan waad seexanaysaan warna isuma haysaan waxa idinku socda qaaluu ثم قدموا ثم قرروا إن الصومال بأيدي قوم الحقيقة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.